لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. magaalada Bohol munaasabada Ciid al-Fidriga waxaana kumanaan dadweynaha isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee Xafada Stadium and Football. Sidoo kale bulshooyinka halkaasi ku ilisay wajigooda waxa ka muuqatay farxad iyo reereen ku aadan maalinta munaasabada Ciid al-Fidriga. 29 casho ayay ahayd markii la soo soo bisha barakeysan ee Ramadaan al-Kariim. walow maanta si wada jir loogu tukanayo dhammaan daafaha dunida waxaana maanta si weyn magaalada Bohol looga xusay munaasabada Ciid al-Fidriga. haddaba mar mikrofoonka la dhex qaaday bulshooyinka reer Bohol ayaa waxay telefishinka caalamiga ah ee baltiifan dareenkooda ku aadan farxadda iyo reereynta munaasabada Ciid al-Fidriga. waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta jooga ku laacaan waantu baqay ciida mujtamaca Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa sanadkiisa nabad iyo barwaaqooyin ay ku weydaan dadka Soomaaliyeedna Ilaahay soo daba qulubtooda Ilaahay sufuro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد درينكي مساك وفيعان ياهي ددوينها ومسلمين وحنا لنا نستوجبان عيد مبارك. محمد عبد الرزاق عيد الماتا مناسبة العيد ماتا مناسبة بلارن وهي دتك وحنا لنا نستوجبان فرحتكم وراء المسلمين تدبانتم. وصار لله الحمد. أذكر علي إبراهيم. أذكر. وعلى أصحاب سيدنا محمد عبد العزيز تلفزيون عالمي هون كيبل تي في بوهول.